ganacsatada deegaanka Soomaalida kaas oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi ayaa maanta waxa uu ku wareejiyay alaab hore u ballan qaaday taasoo ahayd askari ka mid ah ciidanka gaarka ee deegaanka Soomaalida kaas oo ku sugnaa furanta isla markaana ay soo calmatay gabar ka mid ah gabdhaha deegaanka taasoo sheegtay in nolosheedu u hibeysay arrintaas oo ka dhalatay in ganacsadaha asagana uu ballan qaado in uu bixin doono alaabta guriga ayaa maanta waxa uu sheegay inuu ballankii uu finayo ganacsadaha ayaana ku wareejiyay xafiiska ganacsiga gaadiidka ayuu markaasi wakiil looga ahaa xafiiska nabadgelyada deegaanka Soomaalida taasoo ayadana ugu dambeyn lagu wareejiyay xafiiska nabadgelyada deegaanka Soomaalida ku xigeenka nabadgelyada deegaanka Soomaalida ayaana alaabtaasi la wareegay waxaan halkan ku doonay alaab guri oo uu xafiiska ganacsiga iyo ku soo wareejiyay ganacsade Maxamed Cabdi laba dhalinyaro ah oo inta hawlgalka lagu jiray sacalmatay gargaarkii ay u ballan qaadeen ganacsadeen qayb ka mid ah qaybta koowaad hadda aan doonno ay tahay waxaa jira dadyo kale oo iyagana sidaas la mid ah ballan qaaday inay gacan ka geysanayaan markii la soo wada geeyo waxay muujinaysaa marxalad ka tahay ciidanka geesiyaasha iyo shacabku si wada jira inay sugi maartay midna oo dagaalka ku jiro midkii aan dagaal ku jirinna oo maal iyo wixii awooday kale dagaalka kula jiro oo la wada gar taagan yahay oo kulligeen aan midnahay waa dhiirigelin aad u wanaagsan waa arrin muujinaysa halkan ka taagannahay argagixisada soo weerartay iyo midnimada dadkeena iyo isu danqashadooda kulli waa Maxamed Kharalaasiyo waa saa u soo horeeyay kuwa kale jira marka kuwan waan sugaynaa hadii la yiraahdo sidoo kale waxaan la hadalnay ganacsadahan oo markaasi ballanqaadka hore uu sameeyay isagoo noo sheegay waxyaalihii ku dhaliyay alaabtan wareejintooda waxaan maanta keenay alaabtii aan muddo 7 cisho ka hor aan ballan qaaday ee aan idhi waxaan keenayaa hurdada iyo fadhigaan keenayaan idhi ayaan maanta keenay wax ku wareejiyay maxay ahayd cidii ay khusisay أنا نفتي إذا أنا بالله قاضي إذن يقومين قسم إذن يمين أورف إن حياة سايل ما كان أفكي إني نفتي ديكوجي نفتي الناخوريان إذا كان أنا وحنا كذي كنا هنتيجي هو يهيل بين لا يتوسنو أنا يتحسك تمتي ما تدرين كي ما تحلق بعشاء كدول ديجان كذا مانتي حتى هو يتهاي حتى أبتهاي حتى أيدانيات هاي أفضل بوجه كريه وعيدك ولا تشتري حاسنا وحي موجنا سائن ضمان شعب دول ديجان سماع حتى عيد هاي شعب أي مدرسين أفكستو عدو أو إسكتي إنه دول ديجان سواء كلا أمو من نبتكلم حيالنا إنه واحد يلكن أو أي شعب ضمان تود أي مدرسين موقف كوره ayna maanta isku duuban yihiin sidoo kale wasiirka ganacsiga deegaanka Soomaalida oo asagana goobta ku sugnaa ayaa asagana ka warbixiyay alaabtaan iyo sida loo wareegeen ganacsade Maxamed aad iyo aad buu mahadsan yahay dhammaan ganacsada deegaanka Soomaalida waxaan ku boorinaynaa inay garab istaagaan haliyada geesiinta deegaanka Soomaalida u soo baxay iyo booliska ganacsadahani wuxuu u ballan qaaday geesigii macnaha furunta hore galay gabadhu calmatay in macnaha alaabtii orooskii iyo wixii macnaha uu soo diyaariyo fadhigii iyo jiifkii alaabtiin watanada daarkaysaan watan xaga gaariga saaran marka dhammaan cidii maalintaas ballan qaadayna waxaanu leenahay inaad macnaha si dhaba aad u keentaan sida ganacsadahan uu keenay dhanka kale waxaa jiray ballan qaadyo fara badan oo ka iimaanayay qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka Soomaalida balse tan waxay u muuqataa madii ugu horeysay ee looga jawaabaya kaalmada degdega ah ee la soo gaaray ciidanka xoog gaarka deegaanka Soomaalida gaar ahaan caruuska la sheegay in markaas gabadha ay calmatay wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub oo ka kooban 26 wasiir 24 wasiir dawle iyo 25 wasiir ku xigeen kadib in muddo ah oo laga sugayay golaha cusub oo uu ugu magac daray dan qaran ayay ku jiraan xubno cusub iyo kuwa hore uga tirsanaa dawladihii dalka soo maray inkastoo in badan oo ka mid ah golaha wasiirada ra'iisul wasaare Xamza ay yihiin xubno ka tirsan xisbiga UDP ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka tirsan yihiin isbeddelka ka muuqda xukuumadan cusub waxaa ka mid ah in la baabi'iyay gabi ahaanba wasaaradaha qaar sida wasaaradii gargaarka iyo maareynta masiibooyinka
maadaama madaxweyne xasan sheekh uu horey ugu magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur ergey gaarka ah arrimaha abaaraha ee gargaarka bini'aadanimo. sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd balse hadda la raaciyey cadaaladda oo hadda noqonaysa wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka, iyadoo dhinaca kalena lasoo kordhiyey wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo aan horey u jirin. haddaba xukuumaddan ma tahay tii laga filayay ra-iisul wasaaraha marka la eego waqtiga ay qaadatay? waa tan xildhibaan caashe koos maxamuud cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo arrintaasi sharaxaysa. aniga caashe ahaan markaan eego dee xukuumad loo dhan yahay oo ummadda Soomaaliyeed ay u wada dhan tahay oo dadku iska wada dhexarka weeyaan. insha allahna waxaanu ka filaynaa khayr. iyada ayaaba waxaa laga sugayaa dardargelin inay dalkan u samayso mar ay tahay haddii fulinta. anigu aan ku hadlaya arrintaas way la fiicnayd, waana soo dhaweynayaa wasiirada dhammaantood uu horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxadanay saalax iyo dhammaan golaha wasiirada ee la doortay dhammaantood. waxaan leeyahay xil culus ayaa ini fuulay. magacaabista golahan wasiirada ayaa ku soo aaday xilli caqabado badan ay ka jiraan waddanka sida amniga, saameynta abaaraha, kala aragti duwanaanshaha dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo siyaasadaha isdiidan ee ka aloolsan gobolka. aqoon-yahan faarax xasan ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan waxaa horyaala xukuumaddan cusub. xukuumaddan dhowr caqabadood baa hortaagan. mid waa midda abaaraha, talabaad waxa weeye caqabada siyaasadeed, falafaysiga, gobolaysiga iyo arrimo kale. falafaysiga oo ah siyaasadaha isdiidan, wadamo isdiidan oo midba siyaasadiisu gooni tahay sidii si wanaagsan loola heshiin lahaa wax loo wadi lahaa ayaa ah kow. ta kale waxay tahay abaarahan daba dheeraaday oo aan dhaqaalana loo hayn, si fiicanna aan loo xakamayn, iyadana waa caqabad kale. xataa inoo dheer maamul goboleedyadeenii oo weli ku jiro habkii iyo habdhaqanadii hore oo doonayay dalal kale iyo meelo kale la heshiiyaan, heshiisyo galaan iyada oo ka gudbaya habkii federaalka. waxaa kaloo caqabad nagu ah shaqo la-aan baahsan oo jirta weliba dhalinyarada ah, taasoo u baahan in la habeeyo oo dhalinyarada la jiheeyo, dugsiyo farsamo iyo waxyaabo kale loo sameeyo iyo meel wax ka bartaan. tan afraad waxay tahay ka hortagga nabadiidka oo u baahan siyaasad iyo naansho lagu wado iyo in dagaal lagu qaado marka loo baahdo. arrimahaas oo dhan baa hortaagan caqabad ahaan, siyaasad ahaan. xubnaha wasiirada la magacaabay waxaa ku jira sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur oo horey uga tirsanaa madaxda al-shabaab, hase yeeshee 3 sano ee lasoo dhaafay ku jiray xabsi. magacaabistiisa oo hadalhayn badan abuurtay. dadka qaar ayaa u arka in sababta loo xushay inay tahay in dowladda uu ka gacan siiyo sidii dalka looga dhigi lahaa amni, maadaama dowladda ay dagaal kula jirto kooxdii uu mar ka tirsanaan jiray walow loo dhiibay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. cabdixakiin cali guure wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga galmudug ayaa ka hadlaya ujeedada loo magacaabay abuumansuur iyo waxa ay isagu la tahay. mansuur roobow waxa weeye in la soo saaro oo xabsiga laga soo saaro oo lagu soo diro golaha wasiirada. runtii wax fudud maaha, wax aad iyo aad u culus. waxa weeye mansuur roobow si aad la socotaba shacbiyadda uu kasoo jeedo maamulka koonfur galbeed ku nool oo dhan waa nin aad u taageero badan oo taageersan yihiin weeye. kow horta maadaama isbedelkan cusub ee dalka ka dhacay oo u baahan yahay taageero shacab oo xoog leh, taas runtii wax badan bay ka taraysaa. dhanka kale waxaan dhihi karaa xagga amniga waddanka marka la eego mansuur roobow wuxuu lafdabar u yahay. aan dhihi karaa anigu maanta in yacni la tacaalo xaaladda waddankatahayba dalka maanta xaaladaha amniga ka jiraahi waa mid ku qotonta xagga fikirka mabaadi'da diiniga ah. sidaas maadaama ay tahay mansuur roobowna uu ka soo shaqeeyey arrintan oo kamid ahaa mas-uuliintii ugu sarreeyey xarakada ka dagaalamaysa waddanka, uuna garanayo meesha fikirkan uu kasoo bilowday, sida meesha uu ku qotomayo, sida uu dhisan yahay. run ahaantii waa mid aan dhihi karo waa ku habboon tahay maanta inuu ka qayb qaato xagga maaragtay wacyigelinta bulshada, maaragtay waxyaabahan la xiriirina aan dhihi karo
meeshii u habbooneed baa lala eegtay oo maaragtay in maanta laga wacyigeliyay bulshada xagga diinta iyo maaragtay xagga fikriga diiniga ah iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay caqabaadka ka yimid dhankaas oo dhan runtii xambaari kara weeye